تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalihii soo dhawaada walaashiin waaye caawisa u jeedin waxa rabaa inaan idin wadaaga dhiirigelinta anito jikadan iska nadiifinaya insha Allah door bidmo fadlan hadii ku cusubtaa waxaan ka codsanayaa meesha hoos gududan waaye subscribe ka noo taabo like noo saar si share garay walaalaha kale si wadaag insha Allah door bidmo soo dhiirigelinta anito wax kale ma aha saa idin kaga balqaaday waxa rabaa inaan sameeyo jadwal nafsadeeda ah jadwalka aan sameysanayo waxa weeyaan maadaama shaqaale dawladeed noqday waan shaqeeyaa hadda full time 8 hours of my life because gurigan ka shaqeeyaa laakiin saasay tahay waxa weeyaan company baan u shaqeynayaa oo ay tahay waliba 8 hours kaas inaan joojiyo waxaan sameynayo well breaks baa ku jiro 1 hour break laakiin 8 hours of my life I have to stop, you know, أنا guriga joogo caruurtii schoolkoodii waxoodii homeworkkoodii cashadii diyaarintoodii waxooda dhan baa xitaa moogta wixii dhan baa isku wada dhex qasan marka wixii rabaan kala habaysto soo waxaan rabaa inaan kugu dhiirigeliyo caawa aan ku qorsheeynaya waxaan rabaa inaan kugu dhiirigeliyo jadwal oo guriga ah markaad sameysanaysid jadwalka ugu muhiimsan oo guriga aad ka sameysanayso koowaad ha noqdo midka habeenkii aad iyo aad bay muhiim u tahay inaad sameysatid maxaa yeelay habeenkii wuxuu ku sarab gareynayaa maalinta kaleeto oo soo socoto maalinta subaxii especially haddaad tahay hooyo shaqeyso caruur iskuul aadaan waxaas oo dhan baa ku sugaya marka waxa wanaagsan inaad habeenkii aad ka bilowdo jadwalkiisa habeenkii markaa iska kala nadiifisid of course waxaa jiraysa habeeno aadan sameyn karin aadan far dhaqaajin karin because waa daalan tahay hooyaa tahay hadii naftirkaaga break up maanta moogtahay markaas waa markaad maaragtay ilmaha aad jadwal u sameynaysa insha Allah kaas wuu soo socdaa okay barcaa waxaan rabaa aan siiyo xooga aan ka hadlo waxa weeyaan jadwalka oo habeenkii markaa iska saxdid jadwalkiisa maalintii wuu daba socdaa insha Allah durbidno kaasna waa nooc kale video kale waa insha Allah markaan ka hadlayna barcaa waxaan rabaa inaan xooga saaro habeenkii soo habeenkii markaa sameysanaysa jadwalkaaneeto ha ahaado jadwal simple ah ha ahaado jadwal fudud oo ku fududaanayo adiga waqtigaaga haddii maaragtay shaqada iska sii kala yareyn kartid inta cuntada karinaysa ama cuntada hagaajinaysid sii qabo shaqadaaseeto oo alaabta iska sii kala dhaq haddii maaragtay caruurtaada ay tahay caruur jikada kusoo noqoto oo maaragtay shaqada ka daba shaqeynayso mas ka daba sameynayso ha noqoto maaragtay example ku noqotay ilmahaas shaqo si because jikada ay soo galgalayaan macnaheedu waxa weeyaan waxay u baahan yihiin shaqo soo shaqo si jadwalka ayagana markaas waxa bilaabaysaa inaad dhinac adigana ka bilaawdid inaad maaragtay jadwalka adiga sameysanaysid ayagana u sameysid mid walba cunug walba shaqada u diri lahayd inay diyaar ku ahaato ayaa wanaagsan habeen walba cunug ha qaato shaqada oo jikada oo hala kala qaybiyo ilmaha hadii maaragtay shaqada guriga badan tahay kala qaybi oo waxaad sameysataa kii qashinka qaadi lahaa kii miiska nadiifin lahaa hadii la wada casheeyo aniga advice mar walba ku soo celceliya waxaan dhahay family-ga isla wada casheeyo family-ga isla wada fariisto qada ama casho waa reer isjecel waa reer iska warqabo waa reer og ilmaha problemkooda waxooda dhan ma fahanti marka way wanaagsan tahay in la isla wada fariisto oo la isla wada casheeyo soo hadii maaragtay reerka dhan isla wada casheeyana hal mar isla wada cunteeyay dan shaqada waxa weeyaan moogta in la isla wada qabto reer ahaan okay soo caruurta shaqooyin si u qor nin walba oo shaqadiisa hadii caruurta jadwalkooda waa different hadii caruurta maaragtay hadalka keenaan buuq ka keenaan kala bedel shaqada midba isbuucba mid u wareeji shaqada aniga gurigayga waa ujeedaa waxaan alaabta anaga gacanta ku dhaqano laakiin shaqadan hadda ku tusinayo videoganet waxaan u daway purpose-kiisa waxa weeyaan inaan ku korsheekeeyo bad caruurta way qabtaan shaqadan oo kale way qabtaan ayaga sameystaan nafsadooda alaabta dhaqaan because qof walba uu ogyahay shaqadu leeyahay ma fahmino haysdeen waxa waaye easy waxaan ka wadaa shaqadan waa fududahay oo caruurta shaqada loo dhiibayo marar qaarkood waxa laga dhaadhacsiinayaa in la daalan yahay in maaragtay heblo waa maanta ismeena aniga beritaan sameena waa kala bedelina waa kala yeelina maya hadii uu cunug ku qoran yahay ha ka ogolaanin in maaragtay shaqooyinka la kala bedeshay waxaaseeto hadii kala hadhow kugu soo noqonay sheekada no adiga kugu soo kala freenaysa anyways aad iyo aad muhiim u tahay jadwalka marka adigana sameysanaysid ilmahana inaa u sameysid dhinac ugu sameysid because way isla socdaan jadwalka oo adiga nafsadaada iyo kan caruurta way isgarab yaalaan soo isla shaqaysii but alxamdulillah anyways caruurta ilaaha noo daayo soo waxaan sameynaysaa jadwalka caruurta iyo jadwalkaaga nafsadaada waa isgarab dhigaysaa shaqooyinka ku qaban karaan kaaga fududeyn karaan shaqada adiga ku fududeyn karaan waxa waa inaad ku qoratid waayaan maaragtay oo kula diyaarsatid ee waxay ku qaban karaan marka hore waxaan kugu soo sheegan ku dhahay hadii maaragtay aad sii qaban kartid inta cuntada karinaysid cuntada diyaarinaysid hadaa shaqada sii qaban kartid good hadii kale isla markaas maaragtay cunuga uu rabtay inuu shaqadaas qabto isaga u dir
shaqadiisu u qabsado ula barto ula qabsado slowly tartiib baad ma aragtay ay la qabsan doonaan insha Allah adi nafsadaada xataa tartiib baa ula qabsan doontaa because waxaan ma aha wax oo qof walba ku dhashay wax walba waxa waaye inaad qasabtid inaad xoog ma aragtay aad saartid shaqadaas weeyaan soo habeenka haddaad iska nadiifisid adi un bay shaqada kuu fududanaysa next dayga so markaa ka bilaawday habeenkii nadaafada diyaariskiisa guriga intiisa kaleeto slowly umaanaysaa soo jikada ugu muhiimsan jikada ka bilaaw jikada ugu wasaq badan jikada ugu shaqo badan jikada wax walba ma aragtay ay ka bilaabmaan soo jikada ka bilaaw jadwalkaan inta maanta ka bilaaban sheekadiisa aad iyo aad muhiim u yahay so step by stepna allow noo soo diyaarin doona hadduu rabidno so fadlan hadday ku cusubtaan waxaan kaa codsanaya mataqaanaa meesha hoose subscribe-ka noo taabo like noo saar sii share garay walaalaha kale si wadaag okay insha Allah hadduu rabidno so ila soo socodii haddaa ka heshaan videodan kale waa noo soo badinayaa anoo saana kale ugu korsheekeenaya insha Allah hadduu rabidno okay dan video intaan ku dhamaystiraya khayr idin rajaynaya jazakallahu khayr daawanaysi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa inoo videoga dambe